وحويان هايدا كيا وامو يا وحين ugu talagashay inay bulshada wacyi geliso seminar bay ugu talagashay hadda 3 maalmood soconaya hadii aan la idmo seminarkaasna waxa loo baahan yahay inay bulshadu sida ay hay'adda ugu soo dhigtay maxaan ku dhahay inay ugu talagashay inaan uga faa'iideysano waxaad ogtihiin wadankan waan ku soo noolaan jiray dhulkeena barwaaqoon ahaan jiray hadda lafteedana waa sidii dhulka hadii wax laga soo saarto oo maxaan ku dhahaa xilli roobaadka dhulkeena uu iska roob yahay sideedaba dhulka Soomaalidu saxara xigeen baa la dhahaa dhulkeena roobabku marmar bay ka da'aan waxa weeyaan marmarka hadii laga faa'iideysto oo xilliga roobka maxaan ku dhahaa uu yimaado laga faa'iideysto abaaraha waan ka baxaynaa waxaad moodaa bulshadii hadda ku noolayd maxaan ku dhahaa Soomaaliya xoogeeda sida jubbooyinka oo kale inay hay'ad dhowr iyo maxaan ku dhahaa deeq shisheeye uun ay fiirinayaan waxaas waxa ma qaban hayaan dadku hadduu isagu isku tashanin dhulkiisa uu wax ka soo saaranin wadankiisa iyo maxaan ku dhahaa bay'adiisa uu qaybsanin uusan isagu isnabad gelinin waxa weeyaan abaarta kama baxayo waxa la rabaa kolka hadii alla idmo seminarkan hay'ad waxay inoo talagashay inuu inoo socdo uuna sii socon doona hadii alla idmo kismaayo hadda waxyaabo fara badan bay ka qabteen tan iyo maxaan ku dhahaa adu dhobley ilaa afmadow ilaa qooqaani aagana way soo wareegayaan hadii alla idmo kolka waxa la rabaa seminarkaas uu inoo soconayaa 3 bari inoo soconayaa maxaan ku dhahaa sida ay tahayna in looga faa'iideysta loo baahan yahay oo dhulkii la beerto hadda xilli roobaadkii baan ku jiraa xilliga roobka lagu jiro hadii aadan ka faa'iideysan oo dambiyaha kaydsanin oo aan lagu talagalin horta in kor loo kaco dadka inuu kor loo kaco si aan ahaan jiray awal hore beeraha loo abuuran jiray dooga laftiisa loo kala kaydsan jiray ceelasha iyo aagan ceelasha u soo dhaweeyay maxaan ku dhahaa ceel dageenka xilliga dooga in laga fogaado la rabaa oo maxaan ku dhahaa wadamada kale fog ceelasha ka fog la dago si maxaan ku dhahaa diraacdu markay noqoto ceelasha agteeda xoolihiisa loo soo dejiyo oo abaaraha looga baxo waxa weeyaan kolka insha Allah hadii alla idmo mahadsantihiin soo qayb galayaasha insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo uu inoo socon doona in badan baan wada joogi doona hana laga faa'iideysto shakhsi kaste inuu bal abaaraha sida looga bixi lahaa iyo soo horumar iyo wax soo saar u keenin lahaa ha isku day hadii alla idmo dirso la xaafiyo قال كشنان يا فكري كشنان هو كذا كتارون بدل يعني ينادوا يلون يعني حافين أي دي أروحو على كيف فايدة سوبر كنا كتارون جل والله أي مثل حال ها أضروه وحي سامين في هنا يا نبشر بلا آدم waxay yaranayaan wax kasta oo ku noolaa qofka bidaadan sida daaqsinki dadka goynayaan ay galanaysaa labadu xoolaha marka waxay cunayaan ma xoolaha marka way dhimanayaan marka waxa ku xiga bidaadanka inuu dhinto macluum waa maxay saameynta kale ay abaaro ku yeelan karto nolosha bidaadan cudurrada dilaaca نفقة ضرر. الصعب صغير أهو. إذا صعب صغير هاي. على شو بيها يا رئيس؟ ما يرانا بيها. أوكي. محاكا؟ جاتشو. داخسين شو يرانا. وجدت كا هي هذا كبروجكت تيجي على السيمينار كم وقت تحاول. سيدنا لو تيجي على عوض باكي تصون عوض ما تسير لو تيجي والقدر ما حكوا قرما نحن بكرة بجيت كل صابر هذا الحال اللغة كل كلام ومدة بيشة في إسكاشي كسر إذا جماعة كده جد كان مشروعا لما جاري كرا وهدي بس كأنه دبابة حلوي وصراحة شو شيء دبابة يتجاوز ولا حاجة وحي مهم تاعي نرشد بالآلة
dadku ma wajihi karaan caqabadaha ka hor imaanaya bini'aadamka haddii ayna gacmaha isqabsanin kala qaybsanaantoodana ayna aaga ka saarin sifo loo dejiyo colaadahaasi looguna bedelo nabad iyo si dimuqraadiyadaysan ee dadka ugu noolaadaan taasi waxay sabab tahay ujeedka mashruuca inuu ku dhiirigeliyo dadka inay dhinac iska dhigaan kala qaybsanaantooda ayna isku keenaan awooddooda waayo ninkan awood baa ku jirto fikir kala ku jiro awood kale awoodooda isbiirsadaan waxay noqonayaan mid waxayna xal u helayaan sidii loogu hortegi karaa abaarahaas haddaadan samaynin kayd waayo umada diyaargaroobin sooma marka waxaa loo baahan yahay inay dadku iskaashi sameeyaan ee gacmaha isqabsadaan sifay uga hortagaan cimiladan had iyo goor isbedbedelayso farm extension maxaa marka looga hortegi karaa waa in beeraha la badiyo abuurka beeraha waa in la farabadiyaa waa in la asaasaa gooyo projecting wuxuu leeyahay ujeedka waxaa wayaan in dadka la tusiyo sidii ay ku horumarin lahaayeen wax soo saarkooda waxyaabahani waxaa ka mid ah planting trees in geedaha la beero geedaha la beero waa wax soo saar soma waayo waxaa looga hortagayaa abaaraha meeshay geedo dhir badan leedahay iyo geedo waliba dhaadheer way ka roob badan tahay dhulka kale aan geedka lahayn waayo roobku badanaa wuxuu ku badanyaa meelaha buuraleyda iyo geedaha dhaadheer waa inaan dhulka aan beerana sifa aan u manaafacadsano manaafacaadka aan ku noolaan lahayn aan ogala soo baxno kadib waa inaan ka soo saaraa cagaarkii ama doogii ay isticmaali lahaayeen xoolaha markay abaari timaado for example galeedo kale tusaale haddii aad ka goysatid habuuqii miyaad iska tuuraysaa balki may waa inaad kaydgaraysaa waayo waxaad u kaydgaraynaysaa sifa mustaqbalkaad imaan doona haddii inkeys lacalla ay abaari timaado sidii aad oga bixi lahayd waay xoolahaas waa in la sameeyaa bakaarooyin meelo lagu gurto raashinka sifa ayana hadhowda markay abaari timaado loo isticmaalo waa waxyaabaha looga hortegi karo abaarta ayay ka mid tahay biyahoo la maareeyo biyaha see loo maarayna waa in si nidaamsan loo isticmaalaa water management waa inaad biyaha si wanaagsan u isticmaashaa waa in biyahaasi aad ka faa'iidaysataa laga yaabaa maalin aad ka baahi badan tahay inay soo marto waayo abaar markay timaado baad garan kartaa faa'iidooyinka ay leedahay biyaha waa inaad ka faa'iidaysataa oo aad kaydgaraysataa biyaha roobka adigoo qodayo waro samaysanayno baraago sifa hadhowdii aad ugu baxsatid markay timaado abaar waa in ciidan caadiga ah waa inaad ilaalisaa maxaad ku ilaalinaysaa waa inaad geedkaada ka jarin adoo horta buug baad ka aqriyaysaa ugu soo qoray haa sax buug baad ka aqriyaysaa annaguna waanu kaga soo jawaabnayo waxay ku iman kartaa baa layidhi horta dadaalkaas oo dhan oo la isku wada darsaday oo aan qof iyo laba ahayna ummaddu ay ka heshiiso ayaa lagu badbaadin karaa nolosha oo haddii ala lagu maarayn karaa siyaabahaas baan u malaynayaa inay maaragtay ugu dhowaan lahaayeen waxaanaad noo sharaxday inaan lagaga hortegi karo oo lagu ilaashan karo hadda waxaan u malaynayaa tabar badan oo sida aad sheegtay gubiinta halkaa laga soo jeexo halka gada la keeno inay iska dhib badan tahay qalabkeeda ma haysano qalabkeeda ma haysano iyo xooggeedana marka hadda waxa weeye waa wax fiican in maaragtay la isku tashado oo aanu maaragtay noloshanada inaan annagu maarayno oonaan ninna ka sugin waa wax noo fiican oo fiican hadii waa sida carruurtanada ubadkanaga haweenkanaga noloshanada aanu ku noolaan lahayn bay ka mid tahay halo sala dhulka minta abaarta inta la gaaro laga hortegi karaa dhulka inaan la gubin dalka dab iska geliya dhulka marka taasuna waxa weeye waa waxa ka tagtay inta kale la sheegay geedaha inaan la goynin aan dhulka la gubin midda kale koortag waxaan ka hadlay horta koortag soo maaha marka waxa weeye dabka dadkeenu aad dhulka u gubaan intaas aan leedahay qabsaday
beertii tacab fara badan baan geliyey $800 aan ku bixiyey kadib wax maamul ah haba yaraatee oo igu dhiirigeliyay wax boqolaha igooye mooye waan waayay waa iskaga hanjabay marka waa iska daayay $800 iyo iyada baa isla jiifta cid kasto eega wax isku daydeen saasoo kale buu noqon maamulka first one maamulku inay dhiirigeliyaan beeraha qof ka waa doo socon horta marka guddigaas ku bixinaya kaydka sida loo kaydsan lahaa sida maartay aan inta la goynin digniino inuu digniino bixiyo idaacadaha laga hadlo kaaba maartay laga wadi karo waa sax laakiin aniga fikirkayga waxa ila kuman horta dadku inuu beer u jeedsado oo beer inuu samaysan karo oo ku talagalo seerayo balbalaaran intii la samaysto waaweyn in walba uu seera soo oo inta boosaska lagu odaago seerayo intuu in walba uu samaysto inay waqtiga waqti barwaaqaadka ay ilaahay keeno seerahaasi cawskii iyo wixii beeray ka soo baxay intii la qaado la kaydiyo meel la dhigo abaartu markay timaado si la iskaga difaaco oo xoolaha loogu badbaadiyo meeshan hadda waxaa dhibka jira waddankii waa free nin walba meeshuu doonuu ka geli wixii dad soo guuray oo meelo kale ka yimid oo gobollo kale ka yimid baa imani wixii cagtaa la marin berritaba wixii waa iska abaar marka nidaamkaas hadda seeraynta haddii la heli lahaa wax badan baa qabsoomi lahaa baan dhihi lahaa waxaa la yidhahdaa maxamed xuseen axmed baa la yidhahdaa maxamed waxaa naga warantaa seminaarka maanta waxyaabaha aad ka faa'iiday seminaarkan maanta waxyaabo badan baa laga faa'iiday ninkii garan karaya aduu abaarta iyo colaadahu waxay iska saameeyaan waa aqoon kororsi ma ogtahay aqoon kororsi baa horta laga faa'iiday dad aan aqoonna waa isugu yimid meesha marka abaarta iyo colaadahu waxay iska saameeyaan barakaca carruurta iyo waalidkooda isu waayaan macaluul waxyaabahaas oo dhan bay iska saameeyaan haddii aan kusoo laabano dhinaca abaarta abaartu waa wax dhib badan dhibaatooyinka ay reebtana waxa 1 iyo 2 hadda soo xaynaa bal maxaad dhinaca abaarta adigoo taabanaysa caqabadaha ay dadka sida abaarta ay abaar cunto macaluul badan bay keentaa macaluulta ay keentaa biyo la'aanta biyo fogaaday keentaa shuban bay keentaa waxay keentaa cudurro badan oo fara badan bay keentaa daaqoo yaraadaa keenta dhimashay keentaa waxyaabahaas oo dhan bay keentaa abaarta gudaha hadda Soomaaliya waxaa meeshan jooga khaasatan jubbooyinka hoose sanadihii ugu dambeeyay xagga roobka way ku yaraayeen haddana waxaa la soo gelayaa xilligii roobka ay soo dhawaayeen hadda bilow ah dadka reer guuraaga ama dadka degan meelahaas hadda abaaruhu waxay leeyihiin iyo ummadda Soomaaliyeed gebi ahaanba waxaad ugu baaqalaysaa gaariga ahaan dadka weynahan asagoo u baa sidoo abaaraha uga hortagi lahaa ama uu ka samaysan lahaa ama uu asaga jirta horta midda kale waxaa jirta kolkii bulsho meel degan ay bulsho kale oo meel kale ka timid ay ku soo hayaantaan ay ku soo guurto biyo fadhiya biyo socda ka ciyaarlay intii qolyahan ku maadaroobi lahaayeen ee ay maalmo sii joogi lahaayeen ee ku maandeersan lahaayeen qoladii kala kicinays oo qoladii kala carabka kula tagays marka waxa weeyaan ayada oo markaas dadweynuhu mid walba meeshiisa uu ku asheero ama uu abaarta sidoo uga bixi lahaa xoolihiisa biyaha iyo biyo dhaamin ugu geli lahaa ama caws ugu guran lahaa asaga oo markaas ku talagalaya ay ku fiican tahay intaa waxaan ku darayaa tix oo ka hadlaysa haddii alla idmo nabadda mawduuceena waxaa weeyaan abaaraha iyo nabadda way kala daran yihiin labadaas waa laba kala daranoo aad mid walba ay u dhib badanta inta eega joogtee ee maqlaysa waxaan odhan waa aqal adduunyadu albaabkiisu waa nabad iyo irida laga galo nabad bay ikhyaarkeed nabad baa asaageed ummadii ay ku gaadhaa nabad buu ikhyaarkii qof waliba adeegtaa ayadaha quraanka iyo ahadiista culimadu nabad bay ugu sheegaan ummaday la looy maqaxaysa muu sheekh dhigi karaa waan di wacdi oo waxaan dhici karin ayadaha quraanka iyo ahadiista culimadu nabad bay ugu sheegaan ummaday la nooliyeen nabad buu indheer gar aqligiisu taliyaa nabad bay abwaanadu afwaah badan ku keenaan nabad baa udgoon iyo udug iyo barwaaqo leh iyana waxa u lidood ka ilaalinaysan waxa u daran
nabadda waxaa lagu waayaa Soomaalidu inta badan nin waliba waa in hebel kuruska inta leeg kana umaba qabo isu qaba aan loo qabin waxa la isku maandiideen nabadda qaada waxyaabahaas u badan iyana waxa uu leeyahay ka ilaalinaysan iyo qabiil iyo abtir la isu sheegtiyo kana nahay ilmaadeer oo dhalay adeerkay ana ubaxa koroo oday waxaan dhalayo talin jiray awooway marka Soomaalida qof kasto islaam ah waa walaalo qofna qof ma dheera wax